maxaa sababa kororka baruurta caloosha? Waxaa jiro sababo badan oo dadka u keeni karo in ay kororto ama siyaado dufanka caloosha, oo ay ku jiraan cunto xumo, jimicsi la'aan iyo walbahaarka. Hagaajinta nafaqada iyo kordhinta dhaqdhaqaaqa ama jimicsiga jireed iyo samaynta isbeddelka habnololeedka waxay ka caawin kartaa dadka in ay hoos u dhigaan baruurta caloosha. Baruurta caloosha waxaa loola jeedaa baruurta ku wareegsan caloosha. Waxaa jiro laba nooc oo dufanka caloosha ah. Nooca koowaad visceral fat, dufankan ayaa ku wareegsan xubnaha qofka. Nooca labaad waa subcutaneous, tani waa baruurta fadhida maqaarka hoostiisa. Dhibaatooyinka caafimaad ee ka yimaada ama ka dhasha dufanka visceralka ayaa caadi ahaan ka dhib badan marka loo eego baruurta subcutaneouska. Macnaha visceral fatka waxay ka dhib badan tahay ama ka khatar badan tahay subcutaneous fatka. Si kastaba ha ahaatee, isbeddelka habnololeedka ayaa inta badan ka caawin kara dadka in ay yareeyaan heerarka baruurta caloosha iyo in ay hagaajiyaan caafimaadkooda guud ahaan. Sababaha keena kororka dufanka caloosha: 1. Cunto xumo. Marka qofka uu isticmaalo kalori ka badan inta uu isticmaali jiray, macnaha cunto intuu isticmaali jiray in ka badan, waxay keeni kartaa miisaanka iyo kororka kaydinta dufanka. Natiijo ahaan, cuntooyinka ay ku jiraan kaloriga badan laakiin nafaqadu ay ku yar tahay waxay kordhin karaan khatarta kororka miisaanka iyo heerarka dufanka caloosha. Cuntooyinka la warshadeeyey ayaa ah sababaha caadiga ah ee kororka miisaanka iyo cayilka. Sidoo kale waxay hoos u dhigi karaan dheefshiidka kiimikeed, taas oo caqabad ku ah dadaalka luminta ama yareynta dufanka. Sababta labaad, jimicsi la'aanta. Dhaqdhaqaaq la'aanta ama jimicsi la'aanta jireed waa halista koowaad ee buurnaanta, waxayna kordhisaa baruurta jirka. Miisaanka qofka oo kordha iyo dhaqdhaqaaq la'aanta jireed ama jimicsi la'aanta waxay qofka ku adkeyn kartaa in uu dib u bilaabo jimicsiga. Marka uu qofka gubo kalori ka yar inta uu isticmaali jiray, jirka waxa uu u kaydin doonaa xad-dhaafka sida dufan ahaan. Macnaha qofka markii cunto oo cuno balse waxqabadkii uu qaban jiray haddii uusan qabanin, jirka energy badan ma isticmaalaya, inta soo hartay dufan ahaan ayuu jirka u kaydin doonaa. Taasina waxay sababaysaa in dufanta caloosha ay siyaado. Sababta saddexaad, cadaadiska ama stresska. Hormoonka steroid ee loo yaqaano cortisol wuxuu caawiyaa xakamaynta iyo la tacaalidda walaaca. Marka qofku uu ku jiro xaalad khatar ah ama cadaadis sare leh, jirkoodu waxa uu sii daayaa cortisol, kaas oo saameeya dheefshiidka kiimikeed. Dadka inta badan marka ay diiqada dareemayaan, dadka qaar waxay jecel yihiin in ay cunto badan cunaan si ay u dareemaan raaxo. Cortisol waxay sababtaa kaloriga xad-dhaafka ah in ay ku haraan caloosha ama meelaha kale ee jirka si hadhow loo isticmaalo. taasina waa sababta ay dufanta caloosha u saa'ideyso. sababta afaraad, hurdo xumo. Cilmi baaristu waxay muujinaysaa in hurdada muddada yar ay keento visceral fatka ama dufanta oo ah dufanta caloosha oo zaa'ida. muddada gaaban ee hurdada waxay la xiriirtaa kororka cuntada oo la qaato. micnaha dadka hurdada gaaban seexdo inta ay soo jeedaan cunto ayay isticmaalayaan, taas oo laga yaabo in ay qayb ka qaadato horumarinta baruurta caloosha. sababta kale waa cabista sigaarka. guud ahaan dadka sigaarka caba waxay u muuqdaan PMI-gooda body mass index-kooda in mid ka hooseeyo marka loo eego kuwa aan sigaarka cabin. micnaha dadka sigaarka cabo way ka caataysan yihiin dadka kale oo aan sigaarka cabin. si kastaba ha ahaatee, cilmi baaristu waxay muujinaysaa in sigaarka dadka cabo ay caadi ahaan leeyihiin heerar sare oo dufanka caloosha. micnaha khaasatan waxay keentaa tan halista ah oo ah visceral fatka oo ka saraysa kuwa aan sigaarka cabin. waa maxay sababta baruurta caloosha ay khatar u tahay? miisaanka xad-dhaafka ah ama cayilka waa mid ka mid ah sababaha ugu horeeya ee keenta cudurrada waaweyn. dufanka caloosha ee xad-dhaafka ah waxay kordhin kartaa halista wadna xanuunka, dhiigkarka, istrooga iyo macaanka, neefta, kansarka naasaha, kansarka mindhicirka iyo waalida ama dementia. si aad u yarayso baruurta caloosha waa in aad samaysaa dhammaan wixii aan soo sheegnay cagsigooda. micnaha hurdadaada wanaaji, cuntadaada wanaaji, jimicsi sameey, intii aan soo sheegnay cagsigooda le waaye. waxaan rajaynayaa in aad si wacan iila garateen. halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena. waxaa inoo balana muuqaalka xiga hadduu alla idmo. khayr badan.